shilkaas uu naga dhex dhaco shilkaasna maaragtay sababta in aan uur ku qaado uurkii marka u sheego ku dhaanayo walaal kale maanta aan ku ilmeeyo oo dhibkayga u sheegtay maysan hooyaday mar walba ku maaragtay xanuunkayga u sheegan jiray aabahay ma noolo yani qofka kaliya maanta haysto waa hooyadayna xanuunkii aniga ay la mareysay hal habeen oo ay la kulantay wiilkii ay jeclayd ayay ku qaaday uur ayada oo aan nikaaxsan meher dhicin maxay taa sababta marka xanuun weyn iyo weliba inkirmaad hooyadeed dhibka ay martay sababtii gabadha xaafadda ay uga qaxday iyo ugu dambeyntii waxa dhacay waa gabadhan ka sheekaynaysa xanuunka iyo dhibaatada ay ku martay qaabkii ay u qaaday uurka aabihii uu ku inkiray ee meher la-aanta ah ugu horreyn soo dhawow mar kale magacaaga sheeg qisooyinka aa qortay amba aada soo boosti garaysay ee dhacay tee kula yaa badneed walaa horta qise ka yaa badan tahay oo mid walba mucjisadeeda iyo saameynteeda wadataa waxaan u maleynayaa xisaab male qisooyinka la yaab kale ee runtii leela wadaagay wallaahi cabdicasiis haddaan been iska dhooro maalin kasto ama habeen kasto barahayga gaar ahaan bartayda facebooka messengerka ama whatsappka kule inta lambarkayga hayso waxaan ugu tagaa qisaan ugu tagaa mararka qaar waxaan kala dooran waayaa yani saameynta iyo xajmiga ay xoogooda ay leeyihiin waa kala dooran waayaa qisooyinka la yaab kale haddaan soo kokoobo waqti badan ma jiro leela soo wadaaga waxaa qayb ka ah in gabar runtii aada u daayar ay ii sheegtay inay wiil baraha bulshada ay iska barteen muddo ay wada socdeen jacayl ugu dambeyn uu ku abuuray waqti badan ay wada qaateen waa iska taqaanaa bini aadamku waxa weye qaladka waxa weye sunnada nolosha ka mid yahay in maaragtay ay kulmeen kulankoodii uu ka dhacay qalad uu ka dhex dhacay kadib halkaas yani uur ka qaaday mar alle markuu uurka ku ogaaday taleefonka uu ka dansaday iyadii ay waalatay wax badan ay iska daba rafaaday ugu dambeyn kuley waxyaabaha oo aad ku wanaagsan waxa weye hooyadeed bay wax ka heshay yani garab ka heshay ugu dambeyn gabadhi way dhashay gabar baan dhalay ugu dhahday markay gabadha dhashay waxa dhacday horta xaafadda xataa inay reerka kasoo guuraan sababt yani si loo qariyo gabadhan ceebti soo gaartay gabadhii ay dhashay kadib yani gabadhii ugu dambeyn waxay dhahday way saqiirtay waxyaabaha marka laga soo tago dhacdada gabadha waxyaabaha xanuunka igu reebayay ila wadaagaysa waxaa qayb ka ah waxay igu tiri waxaan ka quustay nin Soomaaliyeed oo dhan rajadeedu baabiyay waxbarashadeedu waa ka tagay aniga dhan nolosheedu way isbedeshay yani waxaan noqday qof oo adduunka dhan ba macnaha ka rajabeelo dhowr mar aan ku fikiray leedahay inaan isdilo oo maaragtay nolosha ay islaafiyo haddana markasta hooyo ay dhiirigelinayso waxyaabaha oo xanuunka sii lahaa waxay gabadhaas hooyadii madiya ku ahayd keligeed ay dhashay waxay leedahay yani walaal kale maanta aan ku ilmeeyo oo dhibkayga u sheegtay maysan hooyaday mar walba ku maaragtay xanuunkayga u sheegan jiray aabahay ma noolo yani qofka kaliya maanta haysto waa hooyadayna xanuunkii aniga ay la mareysay bay iyana waxay leedahay waxay ka qaaday dhiikar iyo xanuun ka qaaday marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha yani sida gaarka gabdhaha yararka hadda soo baxayo aad moodo in fursadaha looga faa'iideysto inta dareen lagu beero waqtiga laga lumiyo ama maaragtay yani waxyaabo qaab daran lagu sameeyo qayb kale sidoo kale may waa dhacaan qaladaadka noocan oo kale waa dhacaan gabadha waxay ku sheegtay miya in xiriir uu ka dhaxeeyay oo ayagu isguursan qalad ka dhaxdhacay ma jirin ba baraha bulshada iska barteen say ii sheegtay wax badan ay halkaas ka wada sheekaysan jireen qalbigu meel ma jiray dareen ay u qaaday way jeclaatay marka hore waxay leedahay asaga ii dhahay waa ku jeclahay sidaas aan ku aqbalay waa wada soconay ugu dambeyn waan jeclaaday waa is arki jirnay maalin badana markaas uu iimaan jiray dhahay xaafaddu igu imaan jiray maalinkii dambe wuxuu igu dhahay muddo intaa waayay dhaaday isbuuca taleefonkii iyo wixiisi aan waayay oo raadiyay baan mar dambe helay wuxuu igu dhahay waa xanuunsaday qolan kaliya iska jiifa wax soo booqanayo male maalintaas marka waxay tiri waxaan ku dheeraday bal maadaama aan jeclaa muddana aan wada soconay bal inaan raadiyo oo aan soo booqdo aan soo fiiriyo isla maalinkiina waxaa dhacday in shilkaas uu naga dhex dhaco shilkaasna maaragtay sababtay in aan uur ku qaado uurkii marka u sheego ku dhahnayo maalmihii hore dhan waxay dhacday xataa uu inaaweelinayo wuxuu dhahay bal insha Allah waa soo diyaar garoobaa waxbaa isku dayaa saanan sameynaa yani wuxuu isku dayaa markii uurka ogaaday waxay tiri xitaa aan dib u raadiyo gurigi aan ku ogaan ka raadiyo xitaa waxa la sheegay guriga inuu ka guuray
meel kale oo aan ka raadi karin ma jiro telephone iyo facebook aan ka hayay telefonka iyo facebookina way xirtay saaxiib kale kama aqoon ehel kama aqoon uur baa leedahay uur waa leeyahay waxay ahayd dhacday xanuun maaragtay xaalad saameyn inteeda leh qisada u dambeysay ee hadda baraha bulshada aan kusoo baahiyay waxay ahayd intaasoo kale gabar wiil muddo 2 sano ah xiriir wadaag ahaayeen 16 meelahaas waxay dhahdaa anigu markaas dugsiga sare dhameeyay aan xiriir wadaag noqonay jacayl wuxuu igu beeray indhabeel ah aadan maaragtay waxay tiri yani waad ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aad hayso qiso kugu dhacday ama aad xogaal u ahayd waa la wadaagi kartaa barnaamijka real show qaybtiisa hasaabaha toosan waadna ku mahadsan tahay daawashadaada